dumarka ugu khayrka badan adduunka waa 4: waa Asiya bintu Masaaxim, Maryama bintu Cimraan, Khadiija bintu Khuwaylid iyo Faadima bintu Maxamed rasuulillaahi sallallahu calayhi wasallam. waxaan ka warrami doonaa mid ka mid ah dumarkan, waana Maryama bintu Cimraan oo ah nebi ciise hooyadii. Maryama waxay tusaale u tahay dhammaan mu'miniinta, rag iyo dumarba. waxaa doortay Allah subxaanahu wa tacaala, waxaanu ka doortay dhammaan dumarka caalamiinta. Maryama sharafteeda iyo karaamadeeda waxayna tusaysaa inuu Allah ku magacaabay suuradan oo qur-aanka kariimka ah, waana suuradda 19aad suuratul Maryama. sababtuna waa si loo akhriyo ilaa qiyaamadu ka dhacayso. qisada Maryama way xiganaysaa qoyska ay ka soo jeedo. waxay ku abtirsataa Nebi Suleymaan, naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee. Nebi Suleymaan waxuu ka soo jeedaa duriyadii Nebi Ibraahim, naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee. Nebi Ibraahim waxuu ka soo jeedaa duriyadii Nebi Nuux, naxariis nabadgelyo korkiisa ahaatee. sidaan ogsoonahay, markay dhacday duufaantii halaagtay qoomkii Nebi Nuux, waxaa keliya ka soo farcamay qoomkaasi waa Nebi Nuuxe. sidaa darteed dhammaan basharka nool waxay sii maraan abtirsiintoodu Nebi Nuux, naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee. sida uu Allah inoo tilmaamayo inuu doortay Nebi Aadan, kadibna Nebi Nuux, kadibna Nebi Ibraahim, kadibna reer Aali Cimraan oo ay ka soo jeedo Maryama bintu Cimraan. Allah waxa uu leeyahay suuradda 3aad suuratul Cimraan aayadda 32: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. ilaahay wuxuu ka doortay aadan, nuux ehelkii ibraahim iyo ehelkii cimraan caalamka. cimraan waa nin reer bani israa'iil ah, kuna caan bahay cibaadada alla ka cabsi. reer bani israa'iil oo dhanna waxay ku yaqaaneen inuu cimraan yahay nin adduunyada ka soo gootiyey, ilaahay xuskiisa badsaday. wuxuuna noolaa xilligii uu reer bani israa'iil nebi u ahaa Nebi Sakariye, naxariis nabadgelyo korkiisa ahaatee. xaaska ninkan wanaagsan ee cimraan waxay ahayd iyaduna gabadh lagu yaqaano alla ka cabsi iyo dhowrsanaan. maalin maalmaha ka mid ah ee marwadii cimraan aragtay shimbir qoodinaysa shimbir ay dhashay. markay aragtay jawigaasi hooyanimo, ayay jeclaysatay inay dhasho wiil u adeega beydka maqdeska. waxay tiri iyadoo hadalkeedii ilaahay inooga warramayo suuradda 3aad suuratul Cimraan aayadda 35: قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. xusuuso markay tiri haweenaydii cimraan, eebbo waxaan kugu nadaray waxa urkayga ku jira inuu xor ku ahaado, yacnii cibaadadaada. eega aqbal, adigunbaa wax maqle waxna oge. xaaskii cimraan waxay jeclayd inay dhasho wiil u adeega masjidka si ugu qayb qaato nadiifinta masjidka iyo quudinta masaakiinta, sidoo kalena uu cilmi u siyaasado oo noqdo ruux ilaahay ka cabsada. kaasi wuxuu ahaa hamigii iyo riyadii marwadii cimraan. balse sidii rabtay arrinka ma uusan noqon, ee waxay uurka ku qaaday gabar. gabadhuna kumaysan habboonayn inay u adeegto masjidka. muddo yar kadib waxaa la gaaray xilligii foosha, waxayna umushay gabar. markaasay tiri, rabbiyow waxaan umulay gabar. gabadhuna sida wiilka oo kale ma ahan, oo way kala duwan yihiin jir ahaan iyo garaad ahaanba. mid kasta shaqo ku habboon ayuu ilaahay ugu talagalay. Allah oo inoogu warramaya wuxuu leeyahay suuradda 3aad suuratul Maryama aayadda 36: فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم.
markay dhashay gabar waxay tiri eebow waxaan dhalay dhadig, eebbana waa ogyahay waxay dhashay labna labid maahan dhadig. waxaan ku magacaabay maryama, waxaana ka magangelinay iyadii farceedba shaydaanka, yacnii laga fogeeyey. maryama hooyadeed oo ahayd marwadii cimraan waxay u bixisay gabadhii ay dhashay maryama, waxayna ilaahay ka magangashay inuu ka ilaaliyo shaydaanka iyadii farceedba. ilaahayna waa ka aqbalay ducadii marwadii cimraan, waa ka dhowray maryama iyo wiilkeeda nebi ciiseba shaydaanka, sida uu Abu Hurayra ka warinay rasuulkii ilaahay. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من بني آدم مولود إلا يمسه الشيطان حين يولد فيستهل صارخا من مس الشيطان غير مريم وابنها. ثم يقول أبو هريرة: وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. ilmo kasta oo la dhalo waxaa guujiye oo taabta shaydaanka markuu dhalanayo, kolkaasuu ka qayliyaa, yacnii ka ooyaa taabashada shaydaanka, marka laga reebo maryama iyo wiilkeeda. maryama hooyadeed way daryeeshay oo korisay si ay u fuliso nadarkii ay gashay. markii maryama gaadhay heer ay fadhiisan karto, masjidka ayay geysay, masjidka barakeysan ee qudus. marwadii cimraan way qaaday maryama oo aad u yar, waxayna u geysay rag wadaado ah oo ku cibaadaysanaya masjidka qudus. ragga wadaadada ah waxaa ka mid ahaa nebi sakariya, naxariistii nabadgelyo korkiisa ha ahaatee. waxaanu qabay gabar ay walaalo yihiin maryama oo la odhan jiray ashciya. sidaa darteed qaraabo ayay yihiin nebi sakariye iyo maryama bintu cimraan. xaaskii cimraan oo xambaarsan maryama ayaa soo gashay mawlicii. ayay wadaadadii dhaheen, maxaa ku keenay masjidka marwadii cimraane? markaasay tiri, ilaahay ayaa nadar la galay hadduu wiil isiiyo inaan ka adeegsiiyo masjidka. kadibna gabar ayaa ii dhalatay, balantii aan ilaahay la galina waan oofinayaa ee kafaala qaada maryama. raggii wadaadada ahaa dhammaantooda waxay jeclaysteen inay kafaala qaadaan maryama, sababtoo ah waxay ka soo jeedaa qoys ku caanbaxay cibaado iyo ka dhowrsanaan. markii nin walba dhahay aniga ayaa kafaala qaadaya, ay marwadii cimraan tiri, isu qorituura. kii qorituurka soo baxo ayaa la wareegayaa gacan ku haynta iyo daryeelidda maryama. raggii oo dhan waxay ku heshiiyeen in nin walba qalin ku tuur webiga. kii qalinkiisu aanay mawjadda biyuhu qaadin ayaa la wareegayay gacan ku haynta maryama. markii qalimaanta webiga lagu tuuray ayay dhammaan qalimaantii mawjadu qaaday, marka laga reebo qalinkii nebi sakariye oo u socday dhanka biyuhu ay ka imaanayaan.